بسم الله الرحمن الرحيم مدحda Jubbaland qaybaheeda kala duwan waa salaamiin salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh maanta halkaan waxa isugu nimid munaasabad lagu dhagax dhigayo xabsiga dhexe ee Jubbaland xabsiga sidiisaba meel ciqaab ma dadku qalad biga fahamsiin waa meel dhaqan celin oo qof noloshii ka xumaatay ama ka qalloocatay lagu soo dhaqan celiyo oo soo waansado oo arko waxyaabaha xun inuu dib ugu noqonin xabsigan wuxuu ka kooban yahay qaybo badan dhul aad baaxadiis u weyn oo 3 kiiloomitir ka yar isku wareeg ayuu ku fadhiyaa waana maanta dhagax dhignay waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda reer Jubbaland gaar ahaan qurba joogta Jubbaland ganacsatada dhalinyarada haweenka culamaa u diinka siyaasiyiinta hatta baada saxaafadda inay ka qayb qaataan gacanna ka geystaan dhismaha xabsiga dhexe ee Jubbaland hay'ad ma noo maalgelinayso cid kale naguma deeqin isku tashiga go'aansanay baa lagu dhisayaa xabsiga dhexe ee Jubbaland reer Jubbaland baa dhisayo isku soo wada duub haddii tahay dawlad goboleedka haddii tahay ganacsatada haddii tahay haweenka haddii tahay dhalinyarada culamaa u diinka oday dhaqameedyada dhammaan qurba joogta ee ugu horeyso inay maalgelisaan ka rabno waxaa dhisaya shacabka Jubbaland waxaan lagu dhisayaa iska wax u qabso isku tasho barnaamijka isku tasho ee Jubbaland ka hana qaaday oo dhismooyinka quraxda badan aad aragteen aan ku dhisnay ayaan ku dhiseynaa inta aan uga baxo waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Jubbaland mahad gaar ah u celinayaa sida sharafkooda iyo dawladnimadooda iyo maamulkooda garab istaageen mar walba inay garab istaagaan looga baahan yahay dadka walaalaheena ee iska caadaystay inay wax sheegaan waxaan uga baaqayaa nabadda dhinac ka noqdaan annaga mas'uulka ilaahay mas'uul buu nooga dhigay ayaga insha Allah haddii Ilaahay u qoro maalintooda noqon doonaan laakiin maanta haddii yiraahdaan gawi gashmale wixii 25 sano lagu jira nooroon annaga ka diidnay taa dhibaataan ka soo marnay waa ka soo gudubnay wadada cadeed baa gacanta saarnay cagtaan saarnay wadada cadeed marka nabadda ku soo biira mucaarad ma diidanin mucaaradadu way noqotay mid wax toosin ah wax burburin ma mucaarad annaga dimuqraadiyadda ogolnahay mucaaradka ogolnahay kritikada ogolnahay dooda ogolnahay ilaalinta xorriyadda qowlka ogolnahay laakiin mucaaradda de saligu noqoto waxa la burburiyo waa dhibaato cadiim ah waay dhibaato cadiimna ma fiicno marka waa soo dhaweynaa cid kastoo mucaarad ku ah mucaaradku ay noqdaa mid dimuqraadiya wax dhisaayo oo raba dalka u naxayo oo dadka u turaayo oo deegaanka u turaayo mid dadka iyo diinta iyo deegaanka iyo dawladnimada iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed calanka ummadda Soomaaliyeed aan tureen kaas mucaarad maahan waa qaran dumis waa iska qabanaya annaga midnimada ummadda Soomaaliyeed ogolnahay waa taageerina calanka ummadda Soomaaliyeed waa taageersannahay waa ogolnahay laakiin marnaba yeelimayno maamul goboleedkiina baarlamaankiina nabadgelyadiina oo ay shacabka reer Jubbaland samaysteen yaa intaako lagu dhibaatayna in loo soo qaado ma ogolaanayno ma ogolaan doono dadka dhagaha si fiican u furaan dadka maangaabka waxay meelaha ayaanta la marmarayaan midnimada Soomaaliyeed diidayin ma diidanin midnimada Soomaaliyeed calankii diidayin ma diidanin calanka Soomaaliyeed wada shaqeyn dawladda diidayin ma diidanin federaalka ogolnahay waan lagu diidan yahay dibujida ogolnahay waan lagu diidan yahay dimuqraadiyadda ogolnahay waan lagu diidan yahay midnimadii arabna waan lagu diidan yahay hiigsiga 2016 rabna waan lagu diidan yahay doorashooyin madax bannaan baa rabna waan lagu diidan yahay yaa nagu diidan cid nagu diidan oo idan u ahayn ayada buu isgaranaysaa ha ka taratusho salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh